gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Dr. Muuse Macalin Maxamed Axmed iyo saraakiisha ciidamada booliiska degmada Kaaraan ayaa waxay maanta kormeer ku tageen guryo ay isku haysteen dad shacab ah isla markaana markii dambe loo xukumay shakhsiyaadka iska lahaa guryaha sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Dr. Muuse Macalin Maxamed sidoo kale qoysaskii guryaha iska lahaa oo lagu wareejiyay ayaa ugu mahadceliyay maxkamadda gobolka Banaadir sida ay xukunka u riday mid ka mid ah dadkii guryaha iska lahaa oo warbaahinta la hadlay ayaa sidan yiri Ilyas Umar Qaboobe ahna dhaxaltooyada Umar Maxamuud Qaboobe waxaa maanta dhulkaygii oo ku yaalay degmada Kaaraan xaafadda Wajeer maanta dhulkayga waa la ii fuliyay waxa ii fuliyay maxkamadda gobolka Banaadir waxaan ma u mahadcelinayaa maxkamadda gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir taliyaha qaybta gobolka Bari waxaan kale u mahadcelinayaa taliyaha booliska ee saldhigga Kaaraan dhammaan intii oo dacwadan ka qayb gashay iyo intii garab igu siisaba waa u mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadirna aad aan ugu mahadcelinayaa Muuse Maxamed Macalin aad aan ugu mahadcelinayaa dhulkayga maanta waan helay gacanteydana la ii galshay waana la ii fuliyay hay'adaha amniga dhammaan waa u mahadcelinayaa xeeraalinta waa u mahadcelinayaa maxkamadda sare waa u mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha amniga oo dhan waa u mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashana dhammaantood waa u mahadcelinayaa aad aan u mahadcelinayaa